weligaa ha kala jeclaanin ilmaha aad dhashay iyo ilmaha ay xaaskaaga dhashay ama uu ninkaaga dhalay haddii ay ku mutaan qofka bini aadamka hadduu ku muto ama ilmaha yaryar ama qof kaleeto weynba qofka adiga hadduu ku muto mar walba qofkii ku muto waa qof maskiin ah waxaa fiican qof kastoo ku mutay inaad kula dhaqantid wanaagga ama dhaqanka ugu fiican ama ugu sarreeya sababtoo ah gacan la barkan ilaahay baa og birina qof loo baxsanaya ilaahay baa garanaya kuwaa dhashay kuwa kula dhashay iyo kuwa ay dhaleen xaasaskaaga ama soojkaaga insha allah sheekada inaa ka bogan doontiin aan rajeynaa hadduu ilaahay yidhaahdo عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا السلامة دماغ الله كل حيران channel كيغا ميل كاستو أدون كجوكتين وحني رجينا خير عافمات فرحات باش إبرواقينا كنا ولادين إن شاء الله أنتي نحن نوصل إلى عافمات ما نصير أنت عافمات قبطنا إلى سبحانه وتعالى وسيسيادية مركل إيب إن برنامج عصب بيشاكع عصب إن شاء الله إن محرجينا هذا عصب تاينا سؤال إن شاء الله من شاكدا عن قصة ما أنتو حيوق سيسا إن عبا عرورتي وأثبوا دلي يقو أداكوها kala jeclaaday iyo dhibkii uu mutaystay markii uu weynaaday ama uu duqoobay kadib waxaa muddo isqabay oo ilmo isku dhalay nin iyo xaaskiisa ma dhaha mise nin inaagtiisa ninkan inaagta waxay isku dhaleen 2 wiil islaantan hore waxay usoo dhashay 3 gabdhood 3 gabdhood wiil dhashay wiilku wuu ka faqiiray 3 gabdhood bay haysatay ayuu 3deeda gabdhood haysato ee ninkan guursatay waa carmal ama garoob ah markay guursatay kadib wuxuu ku wada noolaayeen farxad ilmaheeda iyo ilmaha kaleeto ninkan uu dhalay islaantan ma aysan kala garanaynin ma aysan kala jecleen sida hooyo laga rabay ama lagu yaqaanay ama wanaagii hooyo ee lahayd ayay mar walba u isticmaali jirtay ilmaha ay dhashay iyo ilmaha uu ninkeeda dhalay maadaama ay yihiin kuwa ay dhashay iyo kuwa ay dhib la'aan soo dhashay laakiin ninkan odayga muxuu sameyn jiray wuxuu sameynaa caruurta markii looga tago ama caruurta oo islaanta ka maqan tahay uu arko ama gabdhaha kaligooda meel jooga wuxuu leeyahay idinka balaay allah idinkeena gurigeyga dhibaato ku haysiin hungurle u joogtiin faa'iido ma balihidin maxaa meesha in soo dhoobay hooyadin maalin habeen dhibka idinku qabtay ma ogdiin ana unbaa idinka keen celinaya ma ahan haddii hal maalin aan dhibka idinku qabta aniga aan idinkugu daro bes waay wuxuu ka dhigaa ilmaha hooyadood inay necib tahay ayada isagana uu necib yahay asagu uu necib yahay markaas necibkiisu tusaya laakiin wuxuu kusii darayaa uu leeyahay hooyadin farxad inkuma haysato aabihiina ma soo nici lahayn haddii idinkaba aad dad fiican tihiin haddii aabo fiican idin dhalay wuu idin haysan lahaa maanta dhan balaashkaas buu ilmihii ka dhaadhicinayaa oo ku sheegaya oo dhegta ugu shubaya gabdhihii ilaa idinkiis maysan noqonin kuwa oo caasiyaal ah ama ficil ka qaato odayga waxa uu sameeyo mar walbeeto oo uu wax xumaan u geysto ama uu dhibaateeyo ama uu ficilo ama uu inta dhar soo gado iyadoo kaleeto ama hadiyadoo kaleeto ama suuq oo kale intuu tago uu wax ka keeno inta badan wuxuu u keenayaa wiilashiisa wuxuu sameynayaa marka gabdhihii wuxuu leeyahay waa soo iloobay waa idinka go'day lacag markaas ma heenin filim kale markay islaanta la joogto laakiin marka ayaga la joogo wuxuu leeyahay marka lacagta idin gelinaya markay kaligood yihiin maxaan ka wadaa wuu leeyahay maraa idin dhalay wixii idin dhalay waa idin soo naceen haddii wax idin dhalay ay jiraan waa aadi laheedeen wax idin dhalay ma lahan iyo wax idinka naxay iyo waxaad aadaan loo sheegaa maalin kasto siday u ahaayeen dadku waa la waaweynaaday adduunka qof walba dhaqday gabdhihii waxbay barteen waxaa dhacday marka waxaa la dhahay mogta gacan la barkan ilaahay bay ogaa la dhahay mogta ilmahaagana lamasma kala jeclaysiyaa la hadday ilmaha cuqdad ku beertid kuwa aa wanaag ku korisay iyo kuwa xumaanta ku korisay laga yaabina kuwa aa wanaag adiga aad markaas jaceylka isdhehaysay way kaaga fiicnaanayaan kuwa nin ka fiicnaadaan kuwii adiga mar walba xumeyn jirtay ama aad dhibaateyn jirtay sida ku dhacday odayga wuxuu sameeyey gabdhihii waxbay barteen midda ugu dambaysa markay jaamacaddii kasoo baxday labadii kale reer ay samaysteen oo inaag walba naag weyn oo reer leh oo dunyadeeda dhaqanaysa ay noqotay labadiisi wiil waxay noqdeen kuwa dugsiga hoose ama dugsiga dhexeba ku haray oo aan waxbarashadii sii wadinin mid cabtooy iska noqdo duurka iska galo mid makaanig noqdo baabuurta sameeyo oo midkaas aa usoo roonaado makaanig sameeyo baabuur sameeyo bas uu noqday intaas bas sameeyo laakiin saag ah oo waxbarasho maadi iyo diin midna aan ku fiicneen halkaas oga harabay waxbarashadoodii marka intaas ay marayeen si mar walba loogu tumayay loogu garaaciyay loogu cadaadinayay loogu qaylinay wax walba loogu sameeyay waa looga samray inay wax bartaan ama ay waxbarashadoodii sii wataan bas ilmihii qalbihii kaleeto oo wax bartay oo reeraha yeeshay ayagoo reerahooda leh haddana shaqaysanayeen hooyadood biilayeen
duqi aabahoodaha qabay ay guriga u joogay in waxba u dhihiin aabba ay saas u leeyihiin maalin habeen wax alla wuxuu u baahday ay ugu keenayeen guriga. mar daba maxaa dhacay duqi markuu sii weynaaday wuxuu ka jabay lugta. wiilashii wiil ka mid oo makaanigana wuxuu guursaday naag. maamadina way dhimatay. maamadii markay dhimatay intii horta maamada dhiman waxaa guursaday wiilkii makaaniga ahaa oo ay ciddana uu yaraa laakiin makaaniga noqdo ninka uu dhalay gabdhahana ku hooyada ahaa. markuu guursaday duqda aroos wayna xanuunsaneed waayadaas. arooska adduunka loo dhigay wax ka maqnaa ma lahan. waa la soo dhaweeyey sidii wiil guriga kale waxaa la soo dejiyey guriga ee duqda degneed maadaama ay guriga ay kala haayeen ee gurigeeda soo degsatay ay soo dhaweysatay gabadha sodohdeed guriga la keenay. maxay ku samaysay marka duqdii oo xanuunsan gabdhaheedii markay duqdii arkeen marka gabadhaana soo guursaday inayna duqda iyo duqa midna ayna u rooneen ee cadaadinayso ee markii hadal dhahdo ama hadal ay dhahaanba ee hadalkii sii qarxinayso ka dhigayso wax balaayo ah. wiilka intuu xanaaq uu leeyahay xaaskayga miyay arki kartiin ayada indhaha ka bixiseen oo xumeynaysiin guriga dhan ay idin haysaa shaqaalaha ka dhigateen erey aan u fiicnayn waaridka in la dhaho uu ku leeyahay maalin walba aabihiis iyo hooyadiis gabadha cidda gabdhaha kaleeto oo dhashay islaanta bahdaas gabdhaheeda gabadha ugu yareed ay waxay go'aansatay inay ilmaheeda soo wadato ninkeeda ay fasax ka soo qaatay intii hooyadeed ka caafimaadayso ee guriga kula joogta hayso. gabadhii markay guriga timaaday waxaa la suubinayaa wax walba oo guriga laga haleynaa wax walba ilmaheeda laga qaraa hadhow xalla ilmihii baa haleeyay ilmaheeda haleeyay wiilku uu soo ordaa wuxuu leeyahay ilmihii walaashiisa ay dhashay uu leeyahay waxaad tihiin ilma oo saqajaamin oo tarbiya la soo barin xaaskayga alaabteeda inaad kala tuurtiirtan ayadan wax walba iska haleynayso guriga qof u galaayo iyo qof wax ku tarsana male. gabadhan yarta oo wiilka la hooyada ah wax xumaan uma qaadato ilmaheeda sii canaantaa dhahda waa qaldantiina iska dhaaf ayadoo og welibana inay dulmayaan xaaska walaalkeed uu qabo iyo walaalkeed naftirkiisaba walaalkiisna uu xaqiiqada ka indha qarsanayo. sidii loo waday maamadii ayaa dhimatay. markay maamadii dhimato teedii u timid way iska tagtay gabadhii. maxay sameynay aadaama wiilkan is aabihiis uu yahay gurigana uu dhinac ka degan yahay inaan usii joogi karin asaga maadaama ayada hooyada ay u danaynaysay duqi waxay uga tagtay sodogii gabadhu sodoga u ahaa iyo wiilkiisii ay uga tagtay ayadan waxay u laabatay gurigeedii iyo reerkeedii. duqdi marka gabadhii maxay samaysay marka duqi waxaa ku dhacay markay maamada dhimatay kadib wuxuu qabay sokor bareeshara ku dhacay wuxuu barleys ka noqday lug iyo gacan isdhaaf ah ay wuxuu ka noqday lug iyo gacan isxigto ay wuxuu ka noqday baralaati ama waxaa la dareenka ka tagay. markuu sidii ay ku dhacday wuxuu u baahday soomaha duqi xanaano dheeri ah iyo hayn iyo dayac in sidiisii si koox badan loo dayaco aan la dayacin oo loo haayo oo loo xanaaneeyo oo looga warqabo maadaama markan uu noqdo qof naafo ah aynan ahaynna in hal qof ama laba qof xataa wax lagu aamini karo ama lagu dayn karo. markaas wuxuu u baahan yahay xoog wiilashiisii inay haayaan gabdhuhuna ay ka warqabaan. laakiin maxay sameeyeen wiilashii wiilkii wuxuu yidhi aabba adiga miya ahaa maadaama ay curyaan noqotay aniga kuma hayn kari xaaskaygana dhibaato intaan ay culays intaana ugu filan culays kalena muu dari kari hadda xaamilo waaye hadday dhasho adiga inay ku hayso ama ay cunugeeda haysato iskuma dari karto. saas darteed adiga waxaa kaa rabaa inaad duurkayga aadid. aabii xaggeen aadaa guriga soo gurigayga ma ahan soo gurigaan deganaa ma ahan soo gurigeenagi ma ahan aniga xaggeen ka aadaya ma ogi oo dhan meelaad aadaysa laakiin waxaan kaa rabaa inaad iiga tagtid gurigayga oo aadan kusoo laabanin noloshaada inta ka dhimin sababtoo ah xaaskayga ma hayn kartuu dhahay qof curyaan ah anna jaanis kuma haayo anaaba ka badanin uu dhahay makaanignimadayda iyo howlahayga kaleeta kii cabtooyga ahaana ma walahayo warkiisa iska wadhaa. duqi talaa ku xumaatay wuxuu sameeyey aqoon waaye wuxuu u baxsan doonaa gabdhihii uu cadaadin jiray oo wiilashiisa mar walba uu ka ficli jiray wiilashiisa uu ka hormarin jiray uu dhihi jiray wiilasheeda oo wiilal ragga ayaga inka fiican ayaga aabbahoodii hooyadood baheystaan idinka wixii idinku soo naco waaridkiin aabihiin idinku soo naca qabtiin ehel kale ma qabtiin mar walba uu cayni jiray ayuu kusoo dhaca gacantoodii. gabdhihii gabar ka mid ah ayaa duqi la wareegtay oo gurigeeda geysay oo u xanaaneysay sidii kana aabaheed ilaa waaba aabaheed way sidana kama jabiyay laakiin aabaheed ayada dhalay iyo sidee u hayn leed isi kasii fiican ee u xanaaneysay. duqi asaga ahaa ma halahan awood ama tabar ama hadal uu ku dhaho gabadhii sikay cafiye gabdhow intaanu sananto intaanu idin haayay intaanu idin dhalo weligay jeceel aabanimo idinoo tusinin weligay naxariis dhan idinma muujinin weligay idinma daryeelin la-anna waxaan idinku samayn jiray cagsigeeda inaa maalin walbeeto hooyadiin aan idinku diro aan idinka idin xumeeyo aan idin bahdilo aan niyadda idinka jabiyo aan
maxaa dhihi jiray aan idin geysto dhibaato nafsiyan ah idinkoo ah ilmo yaryar oo wax dembi ah aan ku lahayn wixii dhacay iyo kala tagga hooyadiin iyo waalidkiina marka waxaa dhacayso sheekadan waxaa laga qaadanaa ama looga cimri qaadanaa dadka qofka adiga dhashay iyo qofkaaga u dhalay ama qofka adiga aada dhalin inaad isku si u korsatid aad isku si u dhaweysatid oo aada weligaa qof bini aadana aada ku tacadinin ilmahan waa ilmo yaryar waxba qalad kuma lahan hooyada aabada hadday kala tageen hadday is xumeeyeen haddii hooyada la furay haddii hooyada la xumeeyey wax ayaga dembi ay ku leeyihiin ama ayaga ay kasoo gaari karo ma jirto sababtoo ayaga ma sameynayn soo maahan qaladka dadku waalidka ah dhalay baa soo kala tegay waana calafkooda soo dhammaaday laakiin tarbiyada wanaagsan iyo akhlaaqda iyo maxaa la dhihi jiray baarinimada mar walba waxay ku tusaysaa inaa waalidkaaga u baarinimasiis hadduu ku xumeeyo iyo hadduuna ku xumeyninba aabayaasha qaarkood aabayaasha ma wada ahan aabayaasha qaarkood kurti ma wada ahan aabayaasha iyo nimanka ma wada xuman laakiin aabayaalka qaarkood waxaa ku jiro dad xumeeyo ama ficilo ilmaha ay xaaskooda dhashay ayagoo ka dhigaya markaas inay ilmahan dembi leeyihiin ama eel leeyihiin ama rabo inay kala fogeeyaan hooyadan iyo cunuga iyada ay dhashay cunugan haddii aada dhalin waxaa dhashay bila-aan waxaa dhashay xaaskaaga wuxuu la dhashay ilmahaada waxaa fiican mar walbeet inaad fiirisid ama aad ka fikirtid waxaa ku dhici kara qalbiyan iyo nafsiyan cunugaagoo kale ah ama cuqubada kaaga imaan karto hadda odagan ilmihiisi asaga uu dhalay oo dhiicaankiisa ahaa uu jeclaa oo wax walba uu sameyn jiray mar walbeet uu asaga ka hormarin jiray kuwaan islaanta dhashay ayaa dayacay guriga kasoo bixiyey wiilkiisi asoo xaaskiisa u daneynaya wuxuu soo bixiyey aabihii asaga dhalay oo dhiiggiisii dhiicaankiisa ahaa gabadhi asaga una dhalin laakiin mitaal aabanimo uu u joogo booskeedii oo shalana uu xumeynaya iyadoo ilmo yaro agoon oo aaba la-aan ma aha laakiinse agoon haddii barba aabaha aada la joogin la korin oo hooyadaa bis ay korsato agoon maxba ma dhaantid waxaa u noqday ciidan iyo garab koriso ama hayso marka waxaa fiican mar walbeeto inaad ka fikirtid inta aada sameynin wax walba oo ficila biri wixii kaaga imaan karo sababto ah waxaa la dhahay Soomaali waxay dhahay gacan la barkan Ilaahay baa ogaal dhaha sooma ina kuwa dhasho u baxsan doontid iyo kuwa dhalayna u baxsan doontid iyo kuwa kol dhashina u baxsan doontid midna ma ogid laakiin weligaa dad lama xumay dad waa la soo dhaweystaa waana la wanaajiyaa hadduu xataa asaga kugu xumaado waa la wanaagsadaa si biri ka maalin uu qofkaas u ogaado wixii asaga uu shalay sameyn jiray inay xumaayeen adigana aa ogaartid guushaada iyo libintaada aad u mahadsantihiin asxaabta walaalaha qaaliga channelka ku xiran insha Allah waxaan rajeynayaa sheekadan ka heshaan inaad like isaari doontiin